إيمانك شيء قرا لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبه قولل كيف فردوسيه جنو قورسن وليغيه قانغار هدي آتيهين قيرا لغو بيري وحييgeena qiimaha ku sugan qoorsiga ilaasha quraanka iyo sunnaha la isku larayaan la kala qaadin qaada dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura qulubtiina qiyaamaha xaqiisa dhawaan loo qulqulayaaye dad iyo qaadirkeeni wacna qaata amarkiisa alhamdulillah wa thana'u lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima amma ba'd وسورة البقرة تفسير كيدي آيات السقاشة قال الله تعالى إلهي بأوحر بئس ما شيبا حماذي اشتروا به أنفسهم نفتو ذا يبدل قاتين وأن يكفروا إنيك قالوا بين بما أنزل الله إلهي وحي قسودة بغيا إيقوا قردرانيا أن ينزل الله أما حاسدية أن ينزل الله إنه إلهي سودة شيء من فضله ديرات كيس على من يشاء عدو دانو كسودة شيء دوشيس من عباده الدوميزة تاسي حاسدة يعني كحوين كده قال سي فباو حي حنبارتين يهود بغضب على غضب على سارا وللكافرين قال هذا نوحا وسقنا ذي سيدو دباء عذاب مهين عذاب دلية وإذا قيل الله مركا لقول هذا يهود آمنوا رماية بما أنزل الله إلى هاي القرآن كانوا سودة شيء رماية قالوا حيرنا نؤمن وحن رمينا بما أنزل علينا كتاب كنا لقول سودة شيء توراة ويكفرون بما وراه وحانك قالوا بيان القرآن كان كدن بيه وهو الحق واكي سقنا للراعي مصدقا الصغر رمينا يلي ما معه كتابك هايستانا إنه حقي هايبو شيغيا قل وحات هذا فلما تقتلون محا الله نيسان هدا أنبياء الله نبي يدي إلهي من قبل هراي محا الله يسان أنوية معلوم إن كنتم مؤمنين هدا رميسنته النبي يدا إيا كتبتها محا ودشين تلك سوح شيغيا إنا إذا رميسنين بين شيغي سان بئس ما اشتروا به أنفسهم هدي الدنيا دي بدل قاتين إيمان لآن وي بدل قاتين مركب بدايعها يهودا وحا كميدا إني إيبيان دين لآن دين لآن بيدتك كحراشاني كإيبيان وحياة قد دالان تدكو إنانا التزام دينية يالان حتى مسيحية بها وقفكو هديو لي هاي دارين دينية أما وح آمنسي هاي waxaa laga yaabaa in waasicuun uu yeesho wuxuu joojiyaan marka aad waa nidaamkan calmaaniyada la yiraahdo in diinta laga reebo dadka oo dhinaca laga dhigo ama la diiniga la yiraahdo ama ilhaadka casrigan waxa aad u soconaya waxa la yiraahdo ilhaadka oo ilaahay iyo diintoona la rumaysnayn iyo aakhiro taasi aad u iibgeeyo waa qadiyadan odhanaysa inuu qofku xor yahay oo uu xoroobo diin iyo ilaahay iyo rasuul iyo aakhiro iyo waxa ka xoroobo socdo أرنت النوع عاص وقال لماذا يبسدين أن يكفروا بما أنزل الله وحي لهاي سودة شيء كقالوا بين بغي وكبر وحسد كردر ووحي حاسد أيان فضل إلى هاي وسيء عدوا الضانة أو أدومه ساء والنبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد إلهي باوحوا الضاني إنه فضل جيس سيء وأنا أدومها إلهي قايد waxay cadaysay inuu ilaahay doortay rasuulka dema yahuudi badiidi karaysa mar ayadu waxay cadaysay waxa ilaahay uu siiyay rasuulka inuu yahay fadli weyn waa islaamnimadii diinka la raacaya ma jiro inna diina inda allah alislam wa fadliga weyn dalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadli alazim alla wuxuu wa kana fadlullah alayka azima ilaahay dheeraadku ku siiyay weyn قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي فضل جيان حريستك السيئة لقوا فرحوا أدون كيرورين أيان دين لا وياش كاساك خير بضا ووح لقوا فرحوا وحينات المامية آيات وعين كفى هذه سنين قفك فضل وين بيلها يصي سيدنا النبي محمد هبا كردقا كوغو فضل وبدن خلقي إلهي haddana arintaas inaanay ka saaraynin min alcubuudiyya
addoonnimadii min cibaadihi ayayna tusinaysa fadli baa ilaahay wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima fadliga ilaahay uu ku siiye weyn ilaahay dheeraadku ku siiye u weyn waxyigiiyo u weyn qur-aankii oo diimihii kale o dhan nasakhay rasuulkii oo khaatamu alambiyaa waalmursaliin sayidu alawaliina waalaakhiriin haddana intaasoo dhami kama saaraysa inuu noqdo rasuulku min cibaadih ilaahay addoomihiisa inuu ilaahay addoonnimada dhabta ah ku garansiiyaabaaba fadliga weynada rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii cibaadada uu badiyey ee la yidhi maad iska khafiifis sawkan ilaahay kaa fudo dembigii hore iyo kii dambeba kaa dhaaf waxau ihi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura aw falaa akuuna cabdan shakuura miyaanan noqonayn addoon mahadnaqa dee inaan addoon mahadnaqa addoon baan noqonayaa mahadnaqa ilaahay u mahadnaqa subxaana wa tacaala marka taasina midh weeye aada iyo aada u muhiima oo inaynu maaragtay ogaano ay tahay oo inaanay jirin addoonnimada dhaafi kara ma jiro derajo la gaadho waa ta u qiimaha badan mar haddii la xaqiijiya meel loo dhaafaa ma jirto maqaamada ama meelaha ugu qiimaha badan markuu ilaahay sifaynayo nebi maxamedna addoonnimadaasuu ku sifeeyaa tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira subxaana aladii asraa bicabdihi leyla aayado badan baad ka akhrii karaysa marka addoon odhanaya anugu addoonnimadan dhaafay oo darajaan gaadhay oo ma cibaadaysto oo waxaas waa khuraafaad iyo dadka diin la-aan oo lagu baaqayo diintoo la diido dadka diin la-aan laga iibiya waa cadho alleh fabaa-uu biqadabin calaa qadab walilkaafiriina cadaabun muhiin waa cadho alle iyo dulli cadaabun muhiin cadaabku dulleeye iyo cadho alla ayaa laga dhaxlaa in cilmiga samaawiga iyo diinta ilaahay laga cararo oo laga durko waxa markaa runtii ay tahay qofka muuminka inuu aada u dareemo diintan islaamka ilaahay halkan uu inoogu mano sheeganayo yuhuuddana ku eedeeyey qadoodiga ay ka qadeen qiimaha ay leedahay ama had iyo jeer dhaqamada kale waxyaabahay kaga duwantay ama diimaha kale kufriga maanta hada diin duuni lfidra waa diimaha marka la eego diinta keliyaha abuurka waafaqsan qofka bani aadamka ee caadigaa siduu ilaahay u abuuray haddii aanu la khalkhalinin fidradiisii caadiga ahayd uu iska nool yahay oo diimaha la isu barbar dhigo ta kitaabku tan islaamku u qaadanaya qofka faaqim wajhaka liddiini xaniifa fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha qofku wuu iska aqbalaya diintani waa diintii ilaahay diimaha kalena dee dadka wata ayaa sheegi ina diina cinda allahi alislaam waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin diimaha kale casrigan lahayo ee dadka la idhaahdo ku cibaadaysta waxay kaga duwanta waa diin اlxadaarati waاtaqadum waa diin horumar dadka u horkacaysa horumar iyo ilbaxnimo ayaa u horkacaysa waxyaabaha diimaha kale tulmuudkii yahuudda iyo baybalkii nasaaradaba dadku ay uga baxeen waxaa ka mid ahaa inuu horumarkii ka hor joogsaday innaga almasaalix اlmursala walmanaafic اlcaama ayaa jirta oo dadka islaamku waxa uu leeyahay dee usuushaa ku socdo ilaahiinana u cibaadaysta adduunyadiinana ka shaqaysta shay kasta oo dan u ah dadka diintu uma diideyso adduunyada haddii aanu dee usuul kale iyo akhlaaqda iyo waxba u dhimayn sidaa daraaddeed baa ilaahay uuna sii daaya wuxu uhi wasakhara lakum maa fi lardi jamiica min dhulkaa waxaa ku sugan oo dhan waan idiin sakhiree intifaacsada oo maslaxadiina iyo manfacadniida ka faa'iidaysta waa diin caalamiya oon la odhanaya carab bay ku gooni ahayd iyo cid gaaray ku gooni ahayd sidaa horeba aynuu soo akhriyayni wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin diinu tawaasun waa diin isu dheeli tiraysa ruuxda qofka ku jirta iyo jirhkiisa xidhiidhka uu la leeyahay khaaliqa iyo ku addoomaha la leeyahay xidhiidhka reerkiisa iyo ka diinta aakhiro iyo adduunyo kan ka tago intanuun ku urur lama odhan halka diinta nasaaradoo kale maala ay odhanayso dunyada ha la iska daayo fuqara ha la noqdo kaniisadda ha la fadhiyo ama ha laga gabado xumaanta adduunyada ama dumarka iyo hawshooda iyo guurkooduba waa xaraam oo dhib bay leeyihiin waa xarkaha shaydaankii ha laga durko alla wuxu uhi wabtaqii fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayk iska shaqayso
ilaahagana u cibaadayso oo isjeedin dadka qaarkood waxay yidhahdaan ruuxdun ha la ilaaliyo jidhkana ha la baktiyo ruuxduna xaqeeday leedahay jidhkuna xaqiisuu leeyahay الصبغة الأخلاقية أخلاق ونكسن ماشى لها لواء إسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحب الله يصدر يبقى أخلاق دي ونكسن إذا أنبياء أي لا إيمانيسي سأن أطلع ما يستره يا الهي يصدر وإنك لعلى خلق عظيم أخلاقيات وحيابا أمالها قرحية البحنما كستها شيئا الدون كستها هيان يهرو مركز ده مركز دتك أخلاق دو كتكت ويفعل حمادنا حيوان كذا قاعد قال ما أنت قفك لنا ولا سرتي سهيا قرن كريه عبتي سيفعل حمادة ولي إذا قلفت جودي بمركز لا يعذين عرورتي يدائرتي يتينيج كدت كان لا يعذ هلك وحمرين أيان وحيدا بلدينها وحلقة برا إنون حاجة أخلاقه هكسوه لأنه دين تاني يدا وحلقه اللي كرا فيها المقومات للحياة الراشدة نرشة وناكسن معان لا لقيه اللي كرا يوم ملك اللي لقوهين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء معناه وحوي يوحي الشيء ساتتكم مركي لي ما دانا مركا إلى هين براره ذي برواقضه بدنيس دين تنوى دين معصومة أو دورصون سيدو إلهي كسود دشين كوينه القرآن كان كريم يا حديث كرسول صلى الله عليه وسلم وسيدوا إلى هاي كاني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما تشرى كتاب عالم كلا هاي حتى كوا لسوا دشيء كلام إليه أنا وكوا نبان كوا أجانينا أي بربر دقيقة عن الإسلام أما هذا ما أنت لليه الله يسلأ أو ده هاي بربر صعدان يجا كمر خاتك عينا إلى شرين أنت أصلا وقت اللي سوى بدلا الله صوت شفايا الله صوت شراك عمال لقو قري عد ما أنت أرانا يسسدي ونبي موسى لقو صوت دشيا أما نبي عيسى لقو صوت دشيا بوي هاي متشو إذا هنا هذا عجيبة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يدنا إلا بدل ماها خلقنا إلا بدل ماها لبدا إلى هاي ودين سبحانه وتعالى لذلك با إسلام هو معصوم لكن ذلك مسلمين معصومين معه إذا مركا لبدا إن لا يسكو قلدم معه وأنا لبدا قالوا آدو قد دولان عيبها قف مسلمي ولاي هبيتوشا كساران إسلام هو دين دورسون لكن ذلك كو أبتر سنة يدوي قلدمي كرا سيدا قانون كود بوية قانون كود ضد بدن أو دي موادنين تودا كم إذا با كبان شيئا تشبية كو حد قد با مركا عيبتا إليه قانون كود الله من نسبايو القرآن كانوا نواساس وكلاية وحيجين يو ضد بدنا مسلمين الرجل لها ضمر لها ولاد لها ورنا لي ويخلدمي كرا وح معصومة ده أنبياء إلهي باتشره حتى فكرة الشيعة والقبائل أئمة ده إيو وذات ده دون معصوميه وقلط يحيى الرسول شاهين حتى الصحابة رضوان الله عليهم هي قلدمي ولا لا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون مركات دين تنوى الدين معصوم ودورصون waxaa intaa sii weheliya waa fariida in la raaco faral bay nagu tahay ikhtiyaarna balihin inaynu ka baydhno marka waxyaabahaas ay la gaar tahay diintani qofka muslimka ay markuu og yahay loo xayeysiin maayo lagana khaldi maayo diintiisa diimo kale oo baadil ah وإذا قيل مرك الله إلى لهم كوا قال ذا آمنوا رماية بما أنزل الله القرآن كان إلهي وسودة شيء قالوا وحي الله نؤمن بما أنزل علينا أنه التوراة بانوك إيغانينا أما إنجيل ويكفرون بما وراءه كتاب كي كدن بيننا يا القرآن كان وهو الحق وحق مصدقا لما معه وحو وافق سنيه كهيان سيدو وافق سنيه لو أرمود بوي نقول كرتايو إنه حق يهي توراة أما إنجيل أما الزبور قرآن كانوا شيء ككتاب كتابهان وحيابي كتاب كاسي وشيء مركز سيدي سلود داية وح قرآن كان وشيء يندي والله بكتابه سماوية وستيدي معايا لكن وجمر ماينيو كما نوافق سنوي حي بدلين وحلقوا حجينيا فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نبي هراد دشينا محاود دشينا دارون شيغيسان marka ninka nabi hore dilay ma ka rumaysanayno kitaabkiisa sax ahaa oo anigu rumeeyay
ويسقي بديش كتاب كيس مهار بعد وتشيدس ولقد جاءكم بولاهيد وإذين من ابن موسى بالبينات نبي موسى وحيدين إذن لي محجوين كي على العضاء ثم اتخذتم وحا سميستين انت أكذب العجل الدبقي أيا سميستين من بعده انت وتجي ورسينا وأنتم ظالمون إذن كو ظلم السمين يا إذن كو ظلم السمين يا أيا دبي سميستين بولاهيد بيناتك إلهي سبحانه وتعالى حصي إنه نبي موسى سيئي محيه وحجوين على العدوي marka xujooyinkaas waxay noqdaan lababa way noqdaan aayaadka mucjisaadka loo yaqaan markhaatiga waa rasuulka rasuulnimadiisa oo de nabi Muuse aynu garanayno inuu Ilaahay siiyay 9 aayaad aayadahaas oo ay ugu sii cajiibsanayd u shii la yaabka badnayd siyaabaha kala duwan loo isticmaalay waa min albayinaat oo ka mid ahayd gacantan kale uu hoos gelinayo oo dawala la'allahu lambad ilaahay oo la siraaday oo markuu doonana uu de bottom qabanaya aamusiinayo oo de aan iftiinkii lahayn yaba waaya waxyaabo kale oo ilaahay uu ku xoojiyay baa jiro da aynu soo aragnay oo dhagax u lagu taabtay oo de biyo ka butaaceen markay isxariifiyeen nimankii reer banu Israa'iil waa kii habaaray ilaahay uu farsalna calayhim duufaana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayat mufassalat wa ayat halkana ilaahay bayinaat waxa iska celin bakari waayeen xayawaana wama ya'lamu junud rabbika illa huwa takfiyaro in xulaysa iyo injir yar yeeyno la qaylina bal magaaladana takfiya sidaad oranaysa ama magaaladana injira ama waxaad qaado oo dhiigun laga dhigaba iyo duufaano wareegaya dad xun weeye ilaahay waxbuu tusay ee waxbay qaadan laay marka bayinaadku hadiya jeer waxay u taagan yihiin rasuulka midalan markuu ilaahay soo diro mucjisadu waxay u taagan tahay waa khariqul aado waa shaygi dadkan ku qancin lahaa inuu rasuulkani rasuul yahay la markuu rasuulkii ilaahay soo diro hadii uu markiiba bilaabo waxyiga iyo aayada inuu dadka u akhriyay xadiisyo dadku isagiiba ma rumaysna aayadiisana rumaysan maayaan marka waxaad sheegaysaa in la qaato waxa ka horeeya maxay in adiga lagu qaato marka imika adiga lagu qanca inaad tahay qof run sheegayo lagu qaato lagu liqo markaas horta hadalkaaguna soconaya marka aayadahan bayinaadkii waxay rasuulada ka dhaadhiciyaan dadkii baa la leeyahay bal kanoo kale ma haysaan maya haddaydan haynin inuu rasuul yahay ku qanca waaye rasuul inuu yahay marka lagu qanco wuxuu yiri baa la rumaysanaya idan marka arin aad u muhiim ah weeye qofka wax sheegaya inuu ka fikiro horta isaga in laga rumaysan karo wax kastood sheegta aayadii xadiiska laga rumaysanay markay dadku ka shakiyaan adiga ama ay ku sanifsan yihiin ama aanay ku liqsanayn aanay ku aaminsanayn ma rumaysanaya waxyigii wanaagaad sheegayso ilaalinta kalsoonida ayay kalsoonida u beeraysaa marka bayinaadka marka mucjisaadkaas rasuulkii dadka ay ku qanciyaan ayaa wixii uu dadka u sheegay ay qaadanayaan lidalik baa waxa soo horeynay irhaasaadkii waxa ku xigaya bayinaadkii oo mucjisaadkii irhaasaadku waxa weeyaan muqaddamaadka waa hordhaca rasuulnimada sidii nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam riyada uu arki jiray sida Aisha xusayso markaasay riyadaasi run noqon jirtay dadku waa ku rumaysanayaan markii dambana waxa bilaabmay dayixii ila soo kala dilaaciyay mucjisaadkii kale iyo mucjisadii weyneed quraanka thumma waxay sheegaysaa intii wax badan oo idinku qanciyo mucjisaad yimaadeen ba haddana raggiina waaweyn ee ilaahay uu badbaadi ee ilaahay uu wax tusay dib dul fariisateen oo samaysateen arintaas waxay tilmaamaysaa canaadka iyo aqli xumada ay tilmaamaysaa reer banu Israa'iil idinka oo dulmi sameeyay والله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان